Ma ogtahay inaad tahay badeecad lagu kala iibsado internetka? Yaa iibsada xogaha dadka isticmaala internetka? Sidee ayuu internetku kugu soo gaadhaa adiga ambase xagee ayaa laga maamulaa? Yaase iska leh internetka? Si aad xog badan uga ogaato barnaamijkan, fadlan nala joog ilaa dhamaadka muuqaalkan. Waa anigoo ah Nadra Saciid, daawada nagu dhiirigeliya inaad videogan like saarto. Maalin kasta waxaynu si joogto ah u isticmaalnaa waa internetka, inaga oo ka dhiganay nolol maalmeed aan laga maarmi karinba. Xagga dadka qaarna ay balwad u noqotay. Haddaba qof kasta oo isticmaala social media waa badeecad la kala iibsado. Privacy-gaaguna marnaba ma aha mid qarsoon. Daawada ma isweydiisaa su'aashan maxay ku dhacdaa shay aad Google-ka ka soo search garaysay ambase YouTube-ka ka soo baadhay in aad haddana Facebook-ga ku aragto welibana si aan kala joogsi lahayn. Xitaa ma isweydiisay waxyaabaha xaysiis ahaanta lagu tusayay inay yihiin kuwa aad rabtay ambase aan niyada ku haysay oo la yaabna ma kugu noqotay. weligaa maskaxdaada ma ku soo dhacday ambase ma isweydiisay su'aashan shirkadaha Facebook, Google iyo dhammaanba platformyada kale ee aad isticmaashid sidee ay ku soo xareeyaan dakhliga intaas la'eg amba qaabkee ay lacagta ku soo gashaa waayo mid kastaba adigu si fariya ayaad ku isticmaashaa ambase aad ku gashaa adigoo akoon ka samaysanaya idina lacag gaar kaaga ma qaado soo gelitaanka YouTube-ka ambase Facebook-ga marka aad gelaysid. Haddaba jawaabtu waxay tahay adiga ayaa ah badeecada sida dadban loo kala iibsanayo. Tusaale waxaad u baahan tahay inaad xog ka ogaatid kamaradaha ay soo saarta shirkadda Apple adiga oo ka baadhaya dhanka Facebook-ga. macluumaadkaas waxaad leedahay waa mid adiga ku khaasa laakiinse ma aha isla markaba Facebook xogtaadaas waxay la wadaagaysaa Apple iyadoo ka iibinaysa aan ku fahansiiyo tusaale ahaan imika waxaad ka baadhay Google-ka kabaha ay soo saarto shirkadda Nike badeecado kala duwan ka baadh Alibaba Amazon macluumaadkaas aad raadisay ambase aad baadhay ayaa inta la qaado waxa laga iibinayaa shirkadahaas adigana alaabahaas aad raadinaysay ba xaysiis ahaan lagu tusayaa mar kasta si aad u iibsato iyagoo mar kasta ka soo horbaxaya haddaba su'aal shirkadahani maxay isweydaarsadeen ambase ay kala iibsadeen wax kale ma ahan waa adiga xogtaada ambase macluumaadkaagii ay kala iibsadeen waxaad ogaataa haba yaraatee wax privacy ku ah inaysan jirinba macluumaadkaagu ma ahan mid qarsoon haddii noqoto pageska aad follow garaysid fiidiyowyada daawatid waxyaabaha xiisiisada jeceshahay magacyadaad kusoo gashid platform kasta bostiyada aad soo dhigto meelahaad kommentiyada ku qorto sawiradaada IP addresskaaga xitaa maasajyadaas dhaafsataan adiga iyo saaxiibada dhammaanba waa lala wada socdaa marka aad rabtid inaad isticmaashid TikTok, Snapchat, Instagram, Telegram iyo qaar kale fara badanba ugu horeyn inta aanad soo gelin maxaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay waxa weeyaan internet waxaad u baahan tahay data amba wifi labadaas markaad soo furato mid kamid ah kadib waxaad awood u yeelanaysaa inaad isticmaasho platformyadaas kala duwan haddaba internetku sidee ayuu adiga ku soo gaadhaa ambase shirkadaha isgaarsiinta ee wadankaaga ka jira halkee ay ka keenaan internetka waxaynu ognahay maalin kasta internetka ay soo daayaan shirkadaha Telesom, Samtel, Hormud, Golis inaynu khadka ku isticmaalno dhammaantoodba shirkadahaas waxay naga caawiyaan adeega internetka sidoo kalena waxaa loo yaqaanaa ISP oo loo soo gaabiyay Internet Service Provider soo gudbiyaha adeega internetka haddaba su'aashu waxay tahay iyaga laftirkoodu xagee ay ka keenaan internetka badahan waaweyn hoostooda waxa ku dhex jira fiilooyinka internetka qaada waa fiilooyinka isgaarsiinta kuwaasoo ku jira badda gudaheeda iyagoo shaqadooduna ay tahay inay internetka qaadaan oo meesha la rabo ay u gudbiyaan welibana si aad u fudud waxaana loo yaqaanaa submarine communication cable fiilooyinka isgaarsiinta badda hoosteeda laga yaabaa qaar badanoo inaga inaga mida inay su'aalahan isweydiiyeen dhowr jeer internetka yaa iska leh xageese laga maamulaa internetka cid iska leh ma jirto meel si gaara looga maamulo ambase laga leeyahayna ma jirto kaliya internetku wuxuu ku dhisan yahay wadaag iyo wada lahaansho waa shay la wada leeyahay oo dhammaanba dadka ka dhexeeya internetku waa shabakad aan saldhig lahayn kaliya ta dowladuhu awood waxay u leeyihiin inay kontroolaan shirkadaha wadankooda ka jira iyagoo amar ku siin kara inay internetka ka jiraan wadankaas ambase magaalada maskaxdaada ka saar haddii ay kugu jirtay fikradan internetku wuxuu ka yimaadaa jiho gooniya oo u qaybisa dunidoo dhan internetka kuwaasoo xitaa awoodi kara inay xilligii doonaan adduunka ka jari karaan haddaba ogow maanta laga bilaabay inaysan jirin cid awood gaara ku kontrooli karta adduunyada internetka ka jira laba shay ayaa internetka lagu xidhi karaa waa iyadoo wadanka aad joogtid dowladda ka jirta ay internetka jarto iyo masiibo kaloo dhacdo dhammaanba adduunkoo dhan saamaysa waa maxay internet waa shabakad ballaadhan oo isku xidha dhammaanba kombiyuutarada adduunka yaala ninkan magaciisa waxaa loo yaqaanaa Tim Berners-Lee wuxuu si ballaadhan u horumariyay shabakada internetka isagoo ikhtiraacay laba shay oo aad iyo aad u muhiima ilaa iyo maantana aynu isticmaalno URL iyo HTML ayuu sameeyay ninkan loo yaqaano Tim Berners-Lee
URL waxa la soo gaabiyay Uniform Resource Locator. Wuxuu inaga caawiyaa macluumaadkeenu rabno inaynu xirno meesha uu internetka ka yaalo amba dhanka uu ka yaalo. Tusaale, imika haddii aad koobi garayso channelkan aad iga daawanaysid Nadari Saciid linkigiisa, waa URL wuxuu kuu saamaxayaa haddii aad qof u dirto inuu halkan si toos ah u keeno. HTML isna waxa la soo gaabiyay Hypertext Markup Language. waa luuqada kaliya ay isku fahmaan dhammaanba kombiyuutaradu. Tim Berners-Lee ayaa sameeyay sidoo kalena kaalin weyn ayuu ka qaatay internetka. Daawada haddii aan su'aal ku weydiiyo wixii kuugu leeyaabka badnaan muuqaalka ka maqashay sidoo kalena aad ka baratay nagula wadaag xagga commentiga. Joog markasta intaad aderska ka daawatay inaad baxdid xaq miya maanta haddaba sida roobka like-ta igu soo daaya. Walaashiina like idinka dalbatay inaad aderska baxdo saas xaq maaha videogan ha noqdo kii ugu like-ta badnaa. Sidoo kale haddii aanad naga mid ahayn nagu soo bir walaalo ka mid noqo asxaabta ku xiran channelka Nadari Saciid. waad ku mahadsantay daawada haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhamaadka muuqaalkan.